ma burburka xukuumadda Iiraan mise gebagabada gumaystaha. Barnaamij kooban oo ku saabsan dagaalka u dhexeeya dowladda Iiraan iyo weliba kooxaha gumaystaha ayaan saaxiib yaal halkan idinkula wadaagi doonaa daqiiqadaha soo socda. Isla socod wanaagsan. Assalaamu calaykum wacan saaxiibada sharafta leh. Maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago mowduuc ku saabsan dagaalka u dhexeeya dowladda Iiraan iyo weliba kuwan gumaysidoonka ah. Dagaalkan oo bilowday muddo hadda laga joogo 1 sano ama si kale haddii aan u dhigo bilowday July 2024 ayaa maanta wuxuu gaarsiisan yahay ama uu marayaa heer saraakiishii ugu sarreysay ee xukuumadda Iiraan lagu dilo weeraro. Sidaan wada ognahayba 2024 July dabayaaqadeedii ayay xukuumadda ama kooxahan gumaysidoonka ah waxa ay weerar ku qaadeen magaalada Tahraan. Weerarkaasna waxa ay ku dileen xubintii ugu sarreysay ama hogaamiyihii dhanka siyaasadda ee kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin, kaas oo lagu dilay weerar aad loo soo qorsheeyey oo ka dhacay Tahraan. Iiraan ma aysan bixin jawaab ku filan ama u qalanta weerarkaas ee kooxahan ka geysteen caasimadooda. Taa beddelkeeda kooxahan gumaysidoonka ah muddo yar kadib ama 2 bilood kadib wax ay bilaabeen weeraro bartilmaameedsi ah isla markaana aad loo soo qorsheeyey. Waxaana ogeyn weeraradaas oo ay ka geysteen waddanka Lubnaan koonfurtiisa ayagoo ku dilay xubnihii ugu sarreeyey ururka Xisbullah oo ah urur ay taageerto xukuumadda Iiraan. Waxaana ugu sarreeyey ama dadkii halkaas lagu dilay qofka ugu sarreeyey uu ahaa hogaamiyihii ururkaas Sheikh Xasan Nasrallah oo ka mid ahaa aasaasiyaashii ururkaas. 12 xubnood oo saraakiil ah hogaaminayeyna ururkaas ayay kooxahan gumaysidoonka ah baabi'iyeen. Sidoo kale dad kaloo shacab ah oo aan waxba galabsan oo reer Lubnaan ah ayay sidoo kale baabi'iyeen. Kadib waataan ogeyn oo kooxaha wax iska caabinta ah ama kooxaha aan dhahay Xisbullah wax ay bilaabeen dagaal ka dhan ah kooxahan isla markaana muddo kooban ayuu socday dagaal runtii faraha looga gubtay isla markaana ay muujiyeen ayagoo hogaamiyaashooda la dilay weli inay iska caabi karaan kooxahan gumaysidoonka ah isla markaana khasaaro weyn ay gaarsiiyeen. Balse dagaalka sidiisaba waxa u baahan yahay cadowgaaga inaad la sabartanto, laakiin kooxaha Xisbullah waa ay sabartami waayeen isla markaana waxa ay qaateen xabad joojin ayagoo weliba kooxahan wax iska caabinta ee reer Falastiin ay xabad ku socoto isla markaana ay u baahan yihiin in cadowga laga nasiyo ama cadowga furin kale ay kaga furnaato ayay garabkooda ka baxeen kooxda Xisbullah waxa ayna qaateen xabad joojin. Intaa wixii ka dambeeyey xaaladda waa ay deganeed, balse maxaa xigay? Xukuumadda Iiraan oo aan ognahay bariga dhexe inay tahay dowladda ugu awoodda badan isla markaana ku hubeysan sida la sheego hubka nuclear-ka, runtii waa ay isdhigatay isla markaana waxay iska dhaadhicisay dagaalkii ay la gashay kooxahan gumaysidoonka inay ku guuleysteen isla markaana Xisbullah ay isaga difaaceen iyo weliba kooxdan reer Yemen ee Xuutiyiinta. Balse kooxahan gumaysidoonka ah marnaba ma aysan nasan, hurdana ma aysan ladin oo waxay ku fikirayeen sida ay xukuumaddan Iiraan u burburi lahaayeen isla markaana awooddooda ay u wiiqi lahaayeen. Ugu dambeyn saakay ama xalay saqdii dhexe ee habeenimo ayay kooxahan gumaysidoonka waxay fuliyeen weerar ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee la kulanto xukuumadda Iiraan. Weerarkan oo ahaa cirka iyo gantaal dhulka laga tuurayba ayaa waxaa lagu dilay saraakiishii military ee ugu sarreysay xukuumadda Iiraan. Sidoo kale waxaa lagu burburiyey goobo badan oo lagu sameeyo hubka nuclear-ka Iiraan. Maanta jawaabta la sugayo Iiraan laga sugayo waxa ay tahay 2 mid oo keliya: inay isdhiibaan isla markaana ay gacmaha kor u taagaan iyo inay bixiyaan jawaab munaasab ah oo maxaa la yiraahdaa u qalanta weerarkan lagu qaaday xukuumaddooda. Haddaba saacadaha soo socda ama bariyaha soo socda waxaan sugnaa jawaabta Iiraan oo noqon doonta inay isdhiibaan isla markaana ay gacmaha kor u taagaan iyo inay fuliyaan weerarkan
lagu soo qaaday mid lamid ah inta awoodooda ah. saaxiibayaal, wixii barnaamijyadan ka soo kordha halkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa. waana ku mahadsantihiin daawashadiina muuqaalkan.